kooxaha hubeysan ayaa weerar xoogan ku qaaday xarun jirdhis oo ku taala degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. Kooxahaasi ayaa waxay dhaawac xoogan u geysteen gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Daarusalaam oo lagu magacaabi jiray Guura Maxamed Xirsi. Sidoo kale kooxahaasi ayaa waxa ay dileen Allah u naxariistay milkiilihii goobta jirdhis ee halkaas ku taalay. Dhacdadan ayaa gilgishay bulshada dhexdeeda iyadoo ay walaac ka muujiyeen falalka amni darre ee gobolka Banaadir dhawaanahan ka dhacay. Ragga weerarka soo qaaday ayaa beegsaday gudoomiye ku-xigeenka waxaana soo gaaray isla weerarkaasi waxaa si xun ay u toogteen milkiilihii goobta uu ku sugnaa gudoomiyuhu. Weli ma cadda sababta ka dambaysa weerarka, balse weerarada noocan oo kale ah waxaa magaalada ka geysan jiray kooxda Al-Shabaab. Weerarka kadib kooxihii hubeysnaa ayaa goobta iskaga baxsaday iyagoo qaatay gaari uu lahaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Hilwaa iyo qoryo laba gaaraya oo ay ka carareen ilaaladii gudoomiyaha oo goobta ka baxsaday. Markii ay rasaasu ka dhex bilaabatay xarunta jirdhis oo ku sugnaa gudoomiyuhu, maamulka degmada ayaa durba bilaabay howlgal amni oo lagu baadi goobayo kuwa falkaasi ka dambeeyay, balse weli laguma guuleysan in gacanta lagu soo dhigo eedeysanayaashii ka dambeeyay falkan maanta ka dhacay gudaha degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir.